السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وإذن سلامي ميل والبا جوجتان وقت والبا كجرتان وحدي رجانيا عافماد عمر دير إن إلهي إذين أقلاده وحقات كهمينيسان أما جعشين إناد قارتان أدوني أقربا ما أنت وحن جعليستينا إذن لو ذاقو إن دور أرموت أو أدكو معمولي كرتيد أنكونا مارين كرتيد وقت غاقا taasoo oo nooc walba qofka doontid ahow ama qof shaqeeya ama qof guriga iska joogo ama ma aragtay ilmaha ina ku maamushid oo ugu maamushid waqtigooda iyo waxyaabaha ay qabanayaan ama ma aragtay shaqo kale ka shaqeey oo laga rabo ina wax badan waqti yar samaysid ama ma aragtay maxay ahayd guriga bajoog guriga naftiisa xataa daa shaqo ka qabanaysid dhinac kasta ku anfacaya qof kasta anfacaya ama caruur ama qof shaqeeyo ama qof macallin ah oo dadka wax bara ama qof wuxuu rabo ha ahaado qofkii rabo inuu horumar iyo ma aragtay iyo hore u sii socdo rabo oo tiigsanayo ma aragtay meel dheer marka waa ilaa 4 shay aan rabina idin la wadaago oo ku saabsan maareynta waqtiga 4 shay oo midda koowaad ay tahay avoid oo waxyaabaha iska iloobay sidoo kaleeto oo maxay ahayd waqtiga ka luminayo waxyaabahaas oo dhowr nooc noqon karo waxay noqon karaan waxyaabo waqtiga ka luminayo oo aad dabeecad ka dhigatay ama ma aragtay dad kale ku galiyeen ama dad kale mar walba kugu mashquuliyaan ay kugu soo jiidaan maxay ahayd ama dadka naftooda waxay noqon karaan dad oo ma aragtay waqtiga ka lumiyo oo ma aragtay wax faa'iido leh waqtiga ku soo joojineen ogo xusuusnaa adduunka oo dhan meesha rabta ka joog qof walbo ilaahay waa caadil wuxuu siiyay 24 saacadood marka isweydiina maxaa dadka qaar 24 saacadood ay ku haysto maxay u gaareen heer iyo horumar ilaahay wuu waafajiyay dabcan laakiin dadaal iyo maxay ahayd maareynta waqtigana qayb weyn ay ka qaateen sababtoo ah hadaad garanaynin sida waqtigaaga u maareysid iyo waxa aad rabtid inaad ku haminaysid gaartid marka waxa kugu adkaanayo in aad maxay ahayd wax badan ku qabsatid waqti yar dad badan oo ma aragtay adduunka hadda horumar gaaray ama caana ama lacag badan sameeyay ama horumar badan guul gaaray ma fahantay hadaa wareysatid wax ku leeyihiin waqtigooda ay si fiican u maareeyeen marka maareynta waqtiga waxay ka mid tahay horumarka adduunka aakhiro hadda tusaale ahaan salaada oo kale anaka dad muslim aan nahay salaada maareynta waqtiga ka mid tahay ina waqti xadidan oo go'an ku tukano 5 salaadood taas waxay ku baraysaa adaab discipline yeelanaysaa ina waqtigaas tukatid qofka intuu tukanayo waxay ku xiran tahay qof kasta iyo intuu suurada akhriyo iyo intaas ay ku xiran tahay intay kugu qaadanaysa ina salaad walba tukatid inkastoo salaad ka yar tahay waqti badan kaaga waqti yar kaasi qaadanayso marka waxyaabaha aad iska iloobi kartid waa ina og tahay ina waxyaabaha aad wax kugu soo kordhinaynin ama ilmahaaga wax ku soo kordhinaynin ama waqtiga ka dhuminayo ama dadka mar walba waqtiga ka dhuminayo waxyaabahaas iyo wixii la mid ah mararka qaar dad ama wax ma ahan waxa waqti ka dhuminayo oo u baahan tahay inaad iska iloodid waxay noqon kartaa adi naftaada inaad isku tahay cadawga koowaad sababtoo ah naftaada ilaahay ka sokow adaa ka mas'uul ah adoona ilaahay ku weydiinaa markaad ilaahay u laabatid waxa waqtiga ku lumisay ama waxa waqtiga ku soo qabatay inta aad dunida joogtay so haddii adiga og tahay ma aragtay ina wax kugu soo kordhinaynin ama qof waqtiga ka dhuminayo meel xun ku geynayo dan go'aanka adiga iska leh samaha qof weynaa tahay qof la qasbi karo ma ahayd so go'aanka adaa iska leh so hadaa u ogolaatid dadkaas inay waqtiga kaasi qaataan dan that means maxay ahayd cadawgaaga koowaad ayaa tahay mid kaleeto oo ah maxay ahayd sida caruurta oo kale caruurtana anaka ka mas'uula ilaahay ka sokow waa ina u maareyn karno waqtigooda oo ayakana la socodsiina step kasto tilaabo kasto midda labaad waa taan idhahay waa 4 aan rabay inaan idin sheego midda labaad waxa wahay focus oo ah ina wax diirada saartid waxa oo marka waxa iga raal noqda kii hore aan idin dhahay iska iloow avoid ah marka wuxuu yahay avoidka
waa wax muhiim ah oo degdeg ah sababtoo ah muhiim waxay u tahay waa waxa sadaad iska joojinin wax hore uma sii soconaysid waqtigaan uu kaalmaya degdegna waxay u tahay waxa hada si degdeg u joojin waysid xaaladaas iyo dadkaas oo waqtiga kaalminayo dan hore u socod iyo horumar iyo tiigsi dheer ma sii yeelan doontin soo mid labaad waxa weeye focuskaas oo ah wax inaad diiradda saartid ama ilmahaas inay wax diiradda saari karaan so sida hadaa idin sheegay time management caruurta iyo qof walba u anfacaya so si guud ahaana u hadla insha Allah so wax markaa diiradda saaraysid marka waxaas waxa weeye waa wax muhiim ah oona maxay ahayd waa wax muhiim ah laakiin degdeg ma ahan soo xaalad degdeg ah kuma gelinayaan oo kaleeto soo marka waxa u baahan tahay inaa waxaas prioritize ku sameeysid inaa kasoo hormarisid waxyaabaha kale waxyaabahaas oo muhiimka ah oo waa inaad maareyn kartid oo waqti u qaban kartid oo u dejin jadwal u dejin kartid waxyaabaha kale u baahan tahay inaad kordhisid oo kale midda saddexaad waxa waaye increase kordhis so waxa kordhinaysid waxa waaye waa muhiim ayadana sorry I think wax yar waad ku qasay midka focuska ah oo diiradda aad saaraysid waa muhiim waana degdeg sababtoo ah waa waxa u baahan tahay waqti yar ama waqti dheer waxa degdeg ah ina muhiimna ah degdegana ah waa waxa diiradda saaraysid oo isleedahay tilaabo ku gaaraysa tilaabada koowaad ama labaad ama meeshii aad rabto ku fududeynaya mid kale oo ah increase oo ah kordhinta maxay hayto waa muhiim laakiin degdeg ma ahan waxa amal waxa si kordhinaysa waxa ku shaqeynaayo oo ku fiican si kordhinaysa so way ku sii soconaya wixii oo kaleeto maxay hayto mid ka kale waxa way maintain waa waxa ina meeshooda ku haysid ah waxa ku shaqeeyo oo maxay hayto aad wax ku faa'iiday ma waa ina meesha ku sii haysid laakiin waxna increase tartiib hore u sii wadid because wixii adoo ku shaqeynaya hadda la qabsatay hadda isla markiiba hore ka bedeshay waxa laga yaabaa in ma aragtay ay hadhoodi kaleeto ma aragtay kugu ala qabsan weysid soo xogaa waxa fiican ina raali noqdo ina maintain gareyn kartid ina meesha abaar yar ku hayn kartid markii aad la qabsatid ee ku noqdaan wax oo natural amal ah ka bacdina ina markaas hadii baha wada la idmo aad kor u qaadi kartid aad badin kartid waxaas aad sii wadaysid oo kaleeto marka waxa dhici karo wax kaleeto emergency ah marka aad goal setting sameysanaysid ama wax waa ina taasna ku dartid maxay ahayd plankaaga waa ina ku dartid sababtoo ah waxyaabahaas oo kale waa ina boss u banaysid waxa dhici karo so hadaa ku sii tala gashid maxay ahayd Soomaalidu wax kuma mahan maxay qeyr wax ka ma dhimay sharta u tooghay it means adi waxa dhici karo marka waqtigaaga space yar see just in case waxa de soo kordhaan oo aad avoid gareyn karin wax soo baxaan oo kale waxa marka time manage gareynaysid waqtiga marka maareynaysid ama maamulaysid waxa u baahan tahay inaad mar walba soo hormarsid waxa muhiimka ku ah oo degdeg ku ah qof dadko dhan wax ani midilihi kari waxaas qof sababtoo ah wax ani muhiimkii ah wax laga yaabo inuu adi muhiim ku ahayn waxa adi muhiim ku ah inuu qof kale muhiim u ahayn qof kale muhiim u yahay marka qof kasta waxba muhiim u ah waxna muhiim uma aha marka adaa og noloshaada iyo caruurtaada noloshay ku nool yihiin marka adiga aad go'aansan kartid marka goal setting waa important inaad maxay ahayd u sameysid maxay ahayd hami ama tiigsi meel waxay tiigsanayaan ama adi xataa sameysatid amal bishaan waxaan rabaa waxaas inaan sameeyo maxay ahayd waxyaabahaas tusaale camal waan siin karaa maybe maxay ahayd suuradan ama maxay ahayd laba juz ama juz wax macquul ah goolka marka aad dhigaysidna waa in ma aragtay aad wax macquul oo sameyn kartid aad dhigtid ma aha wax oo maskaxda ka badan oo hadaa wixii badisid waxay noqonayaan niyad jab kugu dhici karo niyad jab haduu kugu dhacana wax ma sii wadayso waa ka xiisa dhacaysa so wax yar ku bilaaw baby steps so bini'aadanka markuu dhasho waa aragtay ilaahay wuu awooday inaa markaa dhalno hore ka socono balse wax kasta wax xikmada ku jirto ma fahmaysaa so tartiib wax yar u bilaaw wax yar maalin walba marka wixii ay ku suurta galaan wax yar kale ku sii dar
marka inay goal setting kana muhiim u yahay inaa waqtigaaga maareysid inaa hiigsigaaga ku qoran yahay iyo waxa meesha hiigsanaysid si aad hore ugu sii socotid waxyaabahaas marka waa wax adiga qaas ku ah ilmahaagana qaas u ah wax adduunka lagu kala baxaa wax qaas ah oo qof kasta shakhsi kasta gooni u ah iyo wax guud oo ummadda ka wada dhexeeyo marka waxa adiga qaaska ku ahada og soo adiga go'aanso markaas adigana u sameey maareen iyo maxay ahayd hiigsi ku qoran waa muhiim inay ku qoran yihiin waana muhiim inaa meela ka arki kartid ku qortid sababtoo ah taas waxay ku suurtagelinaysaa inaa mar walba aragtid oo xasuusatid wixii markaa xasuusatidne waxa laga yaabaa inaad wax ka qabatid marka plan inaa sameysid oo maxay ahayd plankaas wuxuu ku suurtagelinayaa maxaa la dhahayaa planka wuxuu ku suurtagelinayaa inaa wixii waxa meesha ka bilaabaysa og tahay meesha dhax ku maraysid meesha break ku qaadanaysid meesha ku sii wadaysid meesha ka nasanaysid marka waxa ku daraysid waxa ka bixinaysid waxna waa inay ku qoran yihiin jadwalkaaga waa inaa ku dartid planka jadwalkaaga inuu ku darsan yahay way maxay tahay waa inaad maxay tahay delicate kala siisid waqtigaaga waqti hebel waxaan sameynaa waxaas waqti hebel iyo waqti hebelna waxaan sameynaa waxaas waqti hebel iyo waqti hebelna waan nasanaya waqti hebel iyo waqti hebel saaxiibadayaal shax la socabaya waqti hebel iyo waqti hebel ilmahayga iyo ama xaaskayga ama xaajiga waqti la qaadanaya so inuu ku kala cad yahay maxay ahayd waqtigaaga iyo meesha ku dhuminaysid laakiin hadaa tahay qof ma aragtay iska socdo oo maxay ahayd qofkii intii ii raacdaha iska raacaysid meel inaad iska fariisatid aad 10 saacadood ku luminaysid aan hadhowdina marka aragtay qof heer iyo horumar gaaray aad ama aragtay sidoo u gaaray mise u gaartay isweydiisid ma aha wax weyn ma aha qofkaas inuu ka aqli badan yahay ka aqoon badan yahay just waxa waay uu maareeyay ama way maareysay waqtigeeda ilaahayna way ka bariday ilaahayna waa tuu naga balan qaado wuxuu dhahay maxay ahayd i weydiiya ana waa idin siinaya Soomaalida maxay ku maamahan dadaala ugu gaaraa marka intaas aan rabin inaan ka gaarsiiyo walaalayaal aad iyo aad u mahadsantihiin intiina mar walba taageerto mar walbana ila soo xiriirto insha Allah waa sii wadaya wixii aad gooni u rabtiin inaan ka hadlana sidii usual-ka ah isoo email gareeya ama isoo ila soo hadla insha Allah waan isku dayaa inaan ku daro jadwalka insha Allah jadwalkaas ku wadi doona marka aad iyo aad u mahadsantihiin kuwiina cusub oo wali maxay ahayd iga warheenin fadlan hadii aad doonaysid email igala soo xiriirtid shukri emailkayga waxa weeye shukri oo ah shukri m8@hotmail.com waa Soomaali hada xarfaha ku sheegan waxa waaye sa ha o ka ra i ma @hotmail.com adinku aad iyo aad u mahadsan fadlan sidii mar walbaba ay ahayd ha iloobina like and share and comment ya waxa weeye ha ka iloobina inaad jeclaataan videoga hadii aad leedahay ma adigu ku anfacay ma qof anfici kara ha ka iloobina inaad la wadaagtid dadka adiga ku xiran tahay ama aad taqaanid ana ka iloobin jacaylka jacaylka waa waxa nolosha kala wado waa waxa adinkii anaka adduunka u joogno marka waa mahadsantihiin waa inoo mar kale u xiiso leh hadii eebaha wada la idmo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh